sidaynu wada ognahayba tirada xadiga dhalinyarada ee geeyiga Soomaaliyeed aad bay u sii badanaysaa sidoo kale waxa fara badanaya ardayda aqoon-yahanka ee ka soo baxaysa sekondariyada dalka sidoo kale waxa xad dhaaf ah jaamacadaha wadanka ku yaala oo laga yaabo in intaas oo kun oo qof inay sanad walba ay ka soo baxaan jaamacadaha laga yaabo 10 jaamacadood hadii ay ku yaalaan wadanka oo jaamacad kasta ay ka soo baxaan kun qof waxa laga yaabaa celceliska 10,000 oo dhalinyaro oo jaamiciyiin inay sanadka ay suuqa ay soo galaan dhammaan dhalinyaradaasina waxay doonayaan in ay helaan fursad ay ku shaqeystaan oo naftooda muxuu ahaayay ay ku anfacaan taasina marka caqabad ayaa ka qabsanaysa oo ka hor imaanaysa 10,000 oo fursadood ma heli karaan waayo wadankeena ma jira maalgashi shisheeye ma jiro adduunyada kuma xidhnin ictiraaf ma haysano way adkaanaysaa marka 10,000 oo dhalinyaro ah inay helaan muxuu ahaayay fursad shaqo inay helaan sida darteed in badan baad arkaysaa oo ay dhalinyaradu leedahay wadanka shaqo ma taalo laakiin imika waxa jira fursado fara badan oo uu qofku uu ku samaysan karo muxuu ahaayay isagu uu shaqo ku samaysan karo marka qofku si uu dhaqaalihiisa uu u kordhiyo ama qofka dhalinyarada ah uu kordhiyo dhaqaalihiisa ka bilaa camalkiina uu shaqo u abuurto waxaanu muxuu ahaayay wadaagi doonaa dhowr qodob oo uu muxuu ahaayay qofka dhalinyarada ah uu shaqo ku heli karo oo lacagna uu ku sameyn karo income-ka soo galiyana uu badin karo وقدرك كوباد نك دلنيرده هدانو هينين أما إن أنت دلنيرده هدانه هينين شقة وإن أي مركب ورثة كهول قشة سدي أي أهلي لهيد شقة أي نفتي ده أما وقف قاس ونفتي سأوكم عليه أو كبح قفكو يدير ده هو ده كشغة متعلق وحمي يالان شغة كستوات قبل كريسد وإن عاد وتفحيدتها أو عاد محوها عاد adu diyaar garooday inaad qabatid wax alla waxay doontaa waa wixii ay lacag ka soo gali karto naftada ku maareyn karto waa inaad muxuu ahaayay qabataa qodobka labaad marka shaqada heshid ha iska fariisanin meel oo ku qancin $200 ama $300 lagu siiyo oo waxa laga yaabaa in 24 saacadood markay ugu badan tahay 8 saacadood shaqaysid 8 saac waxa ku soo haray 14 saac oo 16 saacadood oo kale 16 saacadood oo kale waxaad sameyn kartaa inaad second job shaqo labaad inaad raadsatid si income-kaagu uu u sii bato waqtigaagana aad uga faa'iideysatid intii aynu meelaha fiidiyooyo daawan lahayn ama aynu maqaayadaha ka sheekayn lahayn ama aynu muxuu ahaayay aynu waxaan nafteena anfacanayno muxuu ahaayay aynu ku meeraysan lahayn inaynu shaqo labaad qabanno habeenkii oo kale shaqeyno gelika daboodan aynu shaqeyno dabeetana si income-keena iyo dhaqaalaha soo galaya uu u bato markaad inta heshid ama talabaad aad weydidba waa qodobka labaad aad sameyn kareysid waxa sameyn kartaa in aad sameysid side hustle wax la yiraahdo in shaqo in aad sameysid shaqo muxuu ahaayay aad gurigaaga ku dhex qaban kareysid oo lacag ka soo galayso aqoonyahan baatay secondary ba soo dhigatay primary soo dhigatay jaamacad ba soo dhigatay waxa laga yaabaa in intaas oo aqoon iyo cilmiba aad haysatid side hustle baad samaysan kartaa computer-kaaga soo qaado mobile-kaaga soo qaado data-daada furo 4G-ga kadibna muxuu ahaayay waxaad samayn kartaa waxaad dhigi kartaa Facebook page baad samaysan kartaa YouTube baad samaysan kartaa casharraan baad bixin kartaa haddaad macallin tahayna ardaydaadaad muxuu ahaayay gaar u la hadli kartaa oran kartaa xiisadaasan habeenkii dhigaa oo muxuu ahaayay application-nada software-rada muxuu ahaayay online wax lagu dhigaa ayaad soo qaadan ayaad la soo degi kartaa halkaas ardayda lacag ka qaadi kartaa oo aad casharkaaga iyo cilmigaaga extra-ga aad u dhigi karaysaa side hustle baa la yiraahdaa had ay nooc xirfad kasta oo ku sameyn kartaa adigoo halkan jooga gurigaaga dhex jooga ama goob muxuu ahaayay diyaarsan iska fadhiya ama hotel iska fadhiya ayaad shaqo qaban karaysaa oo aad meel fog aad u shaqeyn karaysaa haddii aad designer tahay oo aad architect aad ka baratay waxa laga yaabaa inaad intaas oo shirkadood oo wadanka daafiisa kala joogay inaad designer u noqotid adigoo halka joogdo sidoo kale waxaad sameyn kartaa maalgashi waad sameyn kartaa
oo waxa laga yaabaa inaad lacagtaadii $300 baa qaatay inaad bil walba iska jirtid boqol iska jirtid ama konton iska jirtid oo 2 sano ama 3 sano aad u diyaar garoodid 3 sano marka dhamaato lacag fiican baa ku urursanaysa lacagta inaad business yar aad ku bilowdid taasina way iman kartaa adoo shaqooyinkaaga haysta business yarna halkan ka wata businesskuna uu ku koraya shaqadaadina ku korayso way shaqadaada 8 saacadood baa haysta businesskana waxaad ka shaqaynaysaa 8 saacadood kale saasoo maxaa ahaay marka hawshaadii aad ku wadanaysaa waxaad samaysan kartaa oo kale adigoo shaqooyinkaaga haysta si dhaqaalahaaga aad u kordhisid waxaad samayn kartaa ama haddaad bila camal tahay waxaad samayn kartaa online business ganacsiyada muxuu ahaay online ka lagu iibiyo ayaad samayn kartaa oo inta badan marka weyn aragnaa Facebook-yada muxuu ahaay waxyaabaha muxuu ahaay lagu soo bandhigo business-ka hadii alaab la iibinayo hadii qalab la iibinayo hadii baabuur la iibinayo adiga arkay sidoo kale waxaad samayn karaysaa adigu haddaad meherad yar furatid business baad ku samayn kartaa haddaad product iibinaysid online baad ku iibin karaysaa kaliya ta waxa ku haysa in aad samaysid Facebook-gaaga aad isticmaalaysid iyo Instagram-ka aad isticmaalaysid iyo TikTok-ka aad isticmaalaysid in aad muxuu ahaay alaabtii aad haysay iyo xirfadii aad haysay inaad ku iibgeysid oo aad bulshada kula wadaagtid waayo maamul waxa laga yaabaa data isticmaalna Facebook isticmaalna Instagram isticmaalna TikTok isticmaalna inta aad wax daawanaysid maxaa ku diiday inaad xirfadaada uunad ku soo badnaysid halka ama product aad haysid iibinaysid aad bulshada u sheegtid nambarradaan raacisid oo lagu soo xiriiraya dad halkaana waxa ka iimaanaysa marka shaqo cusub kaaga iimaanaysa marka sidoo kale waxa aad samayn kartaa freelancing adigoo magaalo jooga ayaa laga yaabaa shirkado meelo fog jooga in aad iyagana freelancing kula shaqaysid oo internetkaaga computerkaaga iyo laptopkaaga ayuunbaa ku hayataana freelancing-kana waad samayn karaysaa dabeeto waxa laga yaabaa 8 saacadood shaqaysanaysay 8 saacadood ka duwan oo aad meelaha iska fadhiyi lahayd ama khayraad ka sheekayn lahayd ama aad meelaha muxuu ahaay ku cabi lahayd inaad shaqaysatid sidoo kale waxa kamid ah in aad samaysatid blog inaad samaysatid website blog inaad samaysatid kadibna aqoontaada aad qoraal ahaan aad u bedeshid kadibna aad ku sii dhaxdeysid Google-ka marka qof kasta oo Google-ka wax ka baaraa mowduucii aad ka qortay wax ayaa soo baxaya tusaale ahaan waxaad ku wanaagsan tahay cilmiga IT-ga kadibna waxaad qoraysaa maqaal ku saabsan cilmiga IT-ga haddaad RAM ka hadlaysid haddaad memory computer ka hadlaysid haddaad application-ayo software cusub aad muxuu ahaay falanqeynaysid waad ku qoraysaa blog-gaaga samaysanaysaa waad qoraysaa waad boosgareynaysaa qof kasta oo mowduucaaga Google-ka uga baahanay wuxuu samaynayaa marka uu soo baxaya marka uu soo baxdo dad badan ay kugu xirmaan oo macmiil yeelitay waxa laga yaabaa in AdSense lagu xiro xaysiin lagu xiro kadibna dhaqaale ka samaysid 2 sano kadib ama sanad kadib 3 sano kadib ama 6 bilood kadib kolba sidii aad adigu aad ku shaqaysatid sidoo kale siyaabaha aynu dhaqaalaheena ay ku kordhin karno waxa kamid ah san hore soo sheegnayba in social media aynu isticmaalno inaynu xirfadeena aynu ku baahino haddii aad doctor tahay waa inaad doctornimadaada aad social media-ha aad kaga hadashaa xanuunada haddii aad engineering tahay waa inaad kaga hadashaa marka dambe aqoontaadi korodhay dad badan ay kugu xulmaan aad yeelatid muxuu ahaayay aad background yeelatid muuqaaladan aad gelisay dad badan ay kugu xulmaan shirkadaha iyaga kula soo xiriiraya dhaqaatiirtu iyaga kula soo xiriiraya kambaniyadu iyaga kula soo xiriiraya ku oranaya waxaan u baahanahay inaad waxa nagala shaqaysid inaad waxa noo qabatid inaad waxaas noo tiraadid marka mowduuceena intaas in ku soo koobinaa aad iyo aad u mahadsantihiin